ciidamada booliska Somaliland gaar ahaan kuwa Hargeysa ayaa xabsiga u taxaabay Sabaax Cabdi Ibraahin oo ahayd xaaska siyaasi Ismaaciil Hurre Booba. Ma cadda sababta keentay xadhigga marwada Ismaaciil Hurre Booba, balse ciidamada booliska Somaliland ayaa xabsiyada ku gura siyaasiyiinta, fanaaniinta, wariyaasha, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo u safra magaalada Muqdisho. Sabaaxna waxay ka mid ahayd dadka tagay magaalada Muqdisho, waxayna baraha bulshada la wadaagtay sawirro ay kula jirto madaxda Soomaaliya. Siyaasiga Ismaaciil Hurre Booba oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa i xaqiijiyay xadhigga Sabaax, inkastoo aanu isiinin faahfaahin taasi ka badan. Waxaanu siyaasigu sheegay in maalinta berriya uu ka hadli doono arrinta ku saabsan xadhigga xaaskiisa ay ciidanku u geysteen. Siyaasi Ismaaciil Hurre Booba ayaa xilal wasiirnimo iyo soo noqday dowladaha Somaliland iyo Soomaaliya, waxaanu ka mid yahay siyaasiyiinta sida weyn looga yaqaano guud ahaanba deegaanada Soomaalida. Haddana waxa uu ka mid yahay xisbiga mucaaradka ee wadani.